qaar ka mid a dhallinyarada ku nool degmooyinka Axmed Dagax iyo koob iyo soddonka May ee magaalada Hargeysa ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen hoolka cusub ee xarunta ciyaaraha waxay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ka codsadeen inuu cafis u fidiyo Sheekh Aadan Sunne oo ka mid ah culimada waaweyn ee Somaliland iyo koox dhallinyaro oo la xidhan waxaana dhallinyaradaas ay carabka ku adkeeyeen baaqa ay madaxweynaha Somaliland u dirayaan ee ku wajahan inuu dib xorriyadiisii loogu soo celiyo Sheekh Aadan Sunne iyo dhallinyaradaasi la xidhan nagu maanta mudane madaxweyne ka hadlimayno in cadaalad lagu xukumay in cadaalad darro lagu xukumay sidii maxaa la raadayay loo qaaday dacwadahooga ee maxaa la raadayay annagu waxaas oo dhan maanta kama hadlayno kaliya option kaliya tan maanta sidina oo ah inaad ka codsanayno inaad dhallinyaradaasi inaad cafido maadaama awood u leedahay inaad dhallinyaradaasi adigu aad cafido oo awoodda madaxweynaha ku jirtay oo dhallinyarada cafiyo dadka imika sanadka aad xilka soo haysay waxaad cafiday boqolaal dada oo inaan TV-da ka daawano iyo in kale oo aan TV-da ka arag waxa la maxaa la raadayay la cafiyay siyaasiyiin waxa la cafiyay maxaa la raadayay madax dhaqameed waxa la cafiyay dhalinyaro waxa la cafiyay abwaano waxa la cafiyay suxufiyiin ay xukunna ku dhaceen intaas oo dhanba iyagoona idina ka codsan ama maxaa la raadayay baaqi kala duwan oo aan TV-da ka daawanaan kaagay ma baad mudane madaxweyne cafiday annaguna hadaan nahay reer Hargeysa aanu ka codsanaa mudane madaxweyne inaad dhalinyaradaasi naga xidhan iyo sheekha maxaa la raadayay naga xidhan ee Sheekh Aadan Sunne inaad intaasiba aad noo cafido maanta waxaanu baaq u direynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oon leenahay inamada xidhan muddada labada sano xidhnaa inaad madaxweyne noo cafido sababtoo waa muwaadiniin xaq u leh in la cafiyo sidii qoliyihii hore loo cafin jiray in loo cafiyo madaxweyne kaaga fadhinaa oon ka codsanaynaa wada hadal barnay dhallinyaradii gobolka Maroodi Sheekh Koobistan Kumeeye Axmed Dagax markaa waxaanu ka codsanaa madaxweyne nimanka dhallinyarada waliba xasaskoodii ciyaalkoodina ay joogaan ee qaarkood ay u baahan yihiin inay u shaqeeyaan inaad madaxweyne noo cafido inamada maanta kaga fadhinaa waxa maanta munaasabadan idaaran tahay codsi iyo baaq wada socda oo u dirayna madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi annagoo ka codsanayna dhallinyarta xidhan iyo sheekhi xaafadda oo isna xidhan inuu cafis u fidiyo iyadoo maanta aan taagnin in laga hadlo xukunka ku dhacay inuu dulmi ahaa iyo inuu xaq ahaa midnaba waxaan ku soo koobaynaa madaxweyne inaad baaqayga tixgeliso oo aad noo cafiso maanta jeelasha Somaliland waxa ku jira dad runtii culimo ah oo runtii tirsanaya tacaddi iyo dib iyo xaq darraba inay ku xidhan yihiin iyagu tirsanaya qaar xukunna ay ku dhaceen muddo dheer xidhan oo kuwaanu baaqa ka dirayna qaar ka gedisan ah oo iyagu xataa baarlays ah oo jeelasha dhexdooda jiifa ilaahayna subxaanahu wa ta'aala xadiisul qudsi wuxuu ku yiri man aada li waliyan faqad aadantahu bil harb qofka wali aan leeyahay la dagaalama ha cilaansado dagaal ilaahay subxaanahu wa ta'aala xagga ilaahay ka ahaaday aan waxaan ku leeyahay wuu u samraya aadan waan ogi inuu nin samir badan u yahay uu samraya laakiin waxaan ka baqayaa isagoo hal mar gacmaha kor u taago oo ilaahay uu aqbalo oo adiguna aad ilaahay asiisaytaan mudane madaxweyne si sharaf leh waxaan kaaga codsanaynaa baaqaygaas inaad naga aqbashid oo aad noo sii diisid maanta adiga kaliya tunba awood u leh inaad soo diisid oo digreeta madaxweyne aad tiraahdo waan cafiyay wassalaamu calaykum cafis hore u baxay baa jira oo naleeli madaxweynihii baa cafiyay dhalinyartii madaxweyne waanu faraxnay caruur bay ka tageen xaasas bay ka tageen arday bay ka tageen annagoo faraxsan oo dadka ay damashaadayaan ina walba uu leeyahay aabaha baa lagu soo deynaya oo nin walba isleeyahay adeerka ay abtiga baa soo baxaya ayaa haddana muddo kadib aan maqalnay inay xidhan yihiin waa muddo 3 bilood baa ka soo wareegtay madaxweyne waxaan ku oran lahaa cafiskaas dhaqdhaqaaqiisa uu noo muuqday ee jira dhamaystir oo ka dhabee madaxweyne ka dhacday isaga bilgubadla ku dhacday oo ah qisad dareen leh oo tan anagu maanta u taaganahay tul lamid ah wuxuu yiri anigoo safar ka imiday oo Itoobiya ku soo dhaawacmay oo ka soo lugeeyay herar ayaan u soo lugeeyay buur bilgubadle anigoo dhaawac ah oo aan socon karin oo laba nin oo u dhashay deegaankuna ay sidaan ayaan bilgubadle u soo lugeeyay buur gamada degin anigoo dhaawac iyo gaajo iyo luun isku ka darsamay ayaa bilgubadle ardaa la soo dul jiifiyay buur ardaaga waxa lahaa islaamnimka inay hayd ay isu noo sheegay Jamaal Ismaaciil odayga caga dablay oo laalhaay
dabeetana jamaado ismaaciil baa ardaygeedii la soo dul jiifiyay buuri ugu yaraan 5 cisho af waxba maan gelin buuri anoo gaajadii iyo dhaawacii isugu kay darsamay ayaa ardayga jamaado ismaaciil soo dul jiifsaday buuri dabadeetana anoo isla talo ma dhaawacaad u dhiman doontaa mise gaajadaad u dhiman doontaa uu kala soo qaxay Hargeysa uga keenay oo xabada roodhida 8 ciyaal leh isla u qaybi ayaa la yiri Muuse Biixi ayaa ardaygaaga dul jiifa oo gaajo iyo dhaawac bay isla dul jiifa dabeetana waxaan ku yiri tir ciyaalkii aan ku yiri 8 ciyaal ahaayeen markaa lahaa ee jabkan roodhida dii gogoynaya iyo waxaan isu qiimeeyay tir ninka dhaawac iyo gaajada la dul jiifa ardaygayga iyo maadsiisa ciyaalkaygii baan ku yiri tir abtigiin ba Hargeysa ka imanayo idin keenay roodhiye ordo kaga hortaga gaari mala imanaya markaas oo Hargeysa ka imanayay dabeetana gaarigii bay ku wada yaaceen beet gaajo iyo luunka ay dirtiibay gaariga Hargeysa ka imanay wada yaaceen beet dabeetana Muuse Biixi baan xabadii roodhida 8 ciyaal ka qadiyay ee ka gaajoonayay ee aan ilaa xalay waxba ka siinin ayaan isaga ku qabtay tiroon afku galiyay waxaan uga socdaa mudan madaxweyne islaantaas xabada roodhida 8 ciyaal kaaga qadisay ee habeenka 8 ciyaal door bidayna gaajo ku seexiso ee adiga ku siisa ayaa ciyaalkeeda xidhin kuwii ay gaajada ku seexisay aad maanta jeelasho ku jira kuwaas ama cafiskaaga dalbanaysa marka culimada la xidho inta badan cid ka hadasha ma jiro culimadii dhigooda ha kama hadlaan haddii maanta abwaan la xiri lahaa waad ogeydeen abwaanadii inta xidhan yihiin inta laga qayliyo waad ogtay fanaan haddii la xidho mudane madaxweyne inta laga qayliyo waad ogtay laakiin dadkii culimada ahaa ee ahlu sharafka ahaa marka la xidho mudane madaxweyne cid ka hadasha ma jirto waxaanu kaa codsanaynaa adiga oo uu sheekhaagi yahay annaga oo uu sheekhayaga yahay culimadii xaafadda dhalinyaradii xaafadda aqoon-yahankii iyo dhammaan dadweynaha reer Hargeysa oo uu Sheekh Aadan Sunne iyo culimadaasiba ka xidhan yihiin waxay ka codsanayaan mudane madaxweyne inaad cafis ku soo fidiso dhalinyaradani baaqa u direysay madaxweynaha Soomaaliland ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay isla markaasina tilmaamay inaanay u suuro gelin in ay galaan ama ay tagaan xafiiska qasriga madaxtooyada Soomaaliland oo ay hore isugu dayeen inay tagaan maxamed cabdi qalinle telefishinka caalamiga bulsho Hargeysa